salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 23 bisha koobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Roble oo ka laabtay go'aankii farmaajo iyo Khayre ay horey kaga gaareen ONLF iyo qalbi dhagax Jubbaland oo qabatay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka haddaba ayay yihiin shakhsiyaadka ku soo baxay kuraastaasi xildhibaan ciyaar jecelna waxa uu ku dhawaaqay inuu ka haray tartanka doorashada kursigii uu ku fadhiyay Umar Cabdirashiid Qayladaan ayuu ka soo saaray habkay ku socoto doorashada golaha shacabka waxaanu ka hadlay kuraastii shalay lagu doortay Garowe iyo qaybta dambe ee warkeena aan idinku soo gudbin doono warbixin ku saabsan muxuu Abiy Ahmed u dhisay ciidamada badda Itoobiya xaguusa ka heli rabaa saldhig badeed intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka odayd ku cusubtahay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey janaalkan haatan warkiyo fidsan golaha wasiirada dowladda federaalka ayaa ka laabtay go'aankii laga gaaray ONLF iyo qalbi dhagax golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan aan caadi ahayn oo looga hadlayay go'aankii ay xukuumadda hore kaga gaartay ururka ONLF ee Soomaali galbeed iyo dhiibistii qalbi dhagax ayaa ansixiyay in laga laabto go'aanka hore uu gaaray golaha xukuumadda sanadkii 2017 kaas oo ka dhan ahaa ururka ONLF xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa go'aankan ay qaadatay waxa uu meesha ka saarayaa midkii hore ee xukuumadda Khayre oo NLF ugu aqoonsatay urur argagixiso kadib markii Cabdikariin Muuse qalbi dhagax loo dhiibay xukuumadda Addis Ababa sidoo kale golahu waxa uu sheegay in qalad ay ahayd dhiibistii Cabdikariin qalbi dhagax ee loo gacan geliyay dowladda Itoobiya 2017 ay ahayd markii kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda Khayre kaasoo goobjoog uu ka ahaa madaxweynaha mudxiliedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare odayaal siyaasiyiin hore kulankaasi waxaa xilligaasi looga arrinsanayay arrinta qalbi dhagax oo xiisad xooggan ay ka dhalatay waxaana dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ahaa sargaal ka tirsan ONLF dowladda ayaa sheegtay xilligaasi markii loo eego heshiisyo ay hore u galeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya in waajib ay ku tahay in dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u gacan geliso qalbi dhagax oo ku sheegtay inuu ahaa argagixiso dhanka kalena Jubbaland maanta waxay qabatay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya faafaynta warkaasi wararkeena kale waxay noo soo gudbinaya waryaheena aad baad maasanta halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana Jubbaland ayaa qabatay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaala xebeedka Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dowlad goboleedka Jubbaland doorashadan oo lagu horeysiyay kursiga hoob 114 ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ah Umar Ibrahim Xaashi iyo Cali Aadan Cabdullaahi waxaana ku soo baxay Umar Ibrahim Xaashi sidoo uu shaaca ka qaaday guudiga doorashooyinka Jubbaland Umar ayaa helay 80 cod halka musharaxii la tartamayay oo isna helay 12 cod sidoo kalena waxaa halaabay 8 cod sida ay sheegeen guudiga doorashooyinka Jubbaland oo natiijadaasi shaaciyay Umar waxa uu ka soo jeedaa beesha daarood ogaadeen gaar ahaan Jufada Bahgari kursiga labaad ee hoob hal eber 7 ee doorashadiisa la qabtay waxaa ku soo baxay mudane Maxamed Sheekh Nuur Cusmaan kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa Maxamedna waxa uu ka soo jeedaa beesha daarood jidwaaq gaar ahaan Jufada Bartire sidoo kale kursiga hoob hal 2 eber waxaa loo doortay Azad Cabdirasaaq Maxamed oo helay 77 cod halka Saciid Cabduqaadir Shugri oo la tartamayay oo isna helay 18 cod Azad waxa uu ka soo jeedaa beesha Dir Layle Cali gaar ahaan Jufada reer oo Saciid sidoo kale xildhibaan Cabbaas Cali Ibrahim ayaa ku guuleystay kursiga hoob hal
wuxuuna helay 79 cod halka Azad Mursal Cadow oo la tartamay uu helay 17 cod. Cabbaas waxa uu ka soo jeedaa beesha Jareerweyne gaar ahaan Jufada Shambara. Cabdinuur Cali Aadan ayaa isna qaab gacantaag ah ugu guuleystay kursiga Hoob Eber 28 oo golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib markii uu tanaasulay Axmed Cabdi Maxamed oo la tartamayay. Cabdinuur waxa uu ka soo jeedaa beesha Hawiye gaal jecel gaar ahaan Jufada Doqondiide. kursiga ugu dambeeya doorashadiisa lagu qabtay Kismaayo ayaa waxa ku guuleystay Dr. Saciid Maxamed Cali waxa uu ku guuleystay kursiga Hoob Eber 93 wuxuuna helay 74 cod halka Mahad Nuur Cismaan oo la tartamay uu helay 24 cod oo caana halaabay oo kaliya 3 cod. Dr. Saciid waxa uu ka soo jeedaa beesha Dir Biyimaal gaar ahaan Jufada Sacada. si kastaba Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inay dardargelin doonto doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya si ay u dhaqangeliso heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxayna Jubbaland sheegtay inay doonayso in waqtigii loogu talagalay ku soo gabagabayso doorashada xildhibaanada ka imaanaya dhanka maamulka Jubbaland. dhinaca kalena xildhibaan ciyaar jecel ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray tartanka doorashada kursigii uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay. xildhibaan Cabdi Shire Jaamac ciyaar jecel ayaa ku dhawaaqay inuu iska gaaray oo tartanka kursiga uu ku fadhiyay Hoob Eber 89 isagoo ka hadlayay magaalada Muqdisho ayuu sheegay inuu go'aansaday inuusan u tartamin ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya isagoona taasi sabab uga dhigay inuu diiday doorashada dadban iyo in la balmaray habraacyadii lagu heshiiyay ee doorashada. xildhibaanka oo dhinaca fanka ka soo galay baarlamaanka ayaa ahaa qurba joog waxa uu matalay beesha oo gardhac mareexaan wuxuuna ku dooday in sida ay doorashada ku socoto aanun dooneynin in uu qayb ka noqdo. wararka ayaa sheegaya in xildhibaan ciyaar jecel uu dareemay inuusan ku soo bixinin doorasho uu tago magaalada Dhuusmare balse uu sheegay inuusan aaminsaneyn doorasho dadbanba. wuxuu uga digay maamulka Galmudug inay ku tagrifalaan kursiga beeshiisa oo haddii lagu xadgudbo uu cadeeyay in uu dhalin karo colaad. si kastaba waxay sii tarayay cabashooyinka ka imaanaya dhanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadooda cusub ee lagu dooranayo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. isla wararkii la xiriiray doorashooyinka ayaana ku guda jirnaayo Cumar Cabdirashiidna waxa uu qeyla dhaanka diray habka ay ku socoto doorashada golaha shacabka waxa uu ka hadlay kuraastii shalay lagu doortay Garowe. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa si adag uga falceliyay doorashadii xubnaha golaha shacabka ee shalay lagu doortay gudaha magaalada Garowe. Cumar Cabdirashiid ayaa walaac xooggan ka muujiyay doorashadaasi isagoo su'aalo badan ka keenay gaar ahaan waxa kalifay in doorashada lagu qabto xiro ciidan dhexdeeda. sidoo kalena wuxuu kala ka keenay sida guddiga doorashooyinka uu wajihi karo arrimahan iyo ciida ay tahay in lagala xisaabtamo haddii doorashada lagu qabto xiro ciidan waa maxay khatarta ah in guddiga doorashooyinku ay si cad u wajahdo sharci daradaasi yaa kula xisaabtamayna liiskan dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee muuqda ayuu ku yiri qoraalkiisa Cumar Cabdirashiid. dhinaca kale wuxuu tilmaamay in dhacdooyinka aadka u argagax badan ay yihiin wixii horay uga baaqeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah doorashada xaqiiqdu waxay u muuqataa mid aad uga argagax badan wixii aan hore uga baaqnay ayuu sii raaciyay qoraalkiisa ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya. doorashada ka dhacday magaalada Garowe oo tii ugu horeysay xubnaha Puntland ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa aad loo dhaliilay waxaana xubnaha la doortay aad ugu dhow yihiin madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. arrimahan oo idil ayaana ku soo aadayay kadib heshiiskii Muqdisho ee golaha shacabka wada tashiga qaran kaasoo lagu cadeeyay in wax laga bedelay hannaanka doorashada oo ay cabasho ka keeneen mucaaradka laguna go'aamiyay in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo ee isla sanadkan 2022. docda kalena madaxweynaha Puntland ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha guddiga khilaafaadka xilli cabasho ee ka jirto kuraasta qaar ee lagu doortay Garowe. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xarunta madaxtooyada maamulka Garowe kulan kula qaatay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal Maxamed Caawil Warsame iyo xubno kamid ah guddigaas oo uu kamid yahay Bashiir Axmed Yuusuf. madaxweyne Dani iyo gudoomiyaha guddiga xalinta ayaana waxa kulankooda uga wada hadleen dardargelinta doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka
oo shalay ka bilaabatay Garowe. Gudoomiye Maxamed Caawil Warsame ayaana madaxweyne Dani u sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashadu noqoto mid hufan oo ku dhacda si nabad ah isla markaasna la fuliyo habraacyadii ay hore ugu heshiiyeen madaxda wada tashiga qaranka. Gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal iyo wafdi hogaaminayay ayaana Garowe u tagay sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay magaaladaasi. Shantii xildhibaan ee ugu horeysay ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee shalay lagu doortay xeerada 54aad ee ciidamada militariga oo ku taala Garowe, waxaana kuraasta qaarkood ee doorashadooda la qabtay ku soo baxay xubno ka tirsan maamulka Puntland oo wasiiro ay ku jireen. Waxaana sidoo kale jira cabashooyin ka yimaada kuraastii qaar ee lagu doortay Garowe oo qaarkood beelaha lahaa ee codsadeen in la hakiyo, laakiin doorashadoodu waa la qabtay. xubno siciidani taabacsan ayaana ku guuleysteen. waa hagaagii daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan muxuu Abiy Ahmed u dhisayaa ciidamada badda dalka Itoobiya xaguusa ka heli rabaa saldhig badeed. Itoobiya oo ah wadan aan lahayn wax bada ayaa sanadii la soo dhaafay ku holaneed dhismaha ciidamada badda kuwaasi oo laga leeyahay ujeedooyin muhiim ah. Tan iyo horaantii 1990 Itoobiya ma lahayn ciidamo badeed oo shaqeeya, inkastoo wadankan uu hore u lahaa awood ciidan oo dhanka badda ah. Isla markii uu Abiy Ahmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya 2018 waxaa howlihii uu gudagalay ka mid ahaa inuu ka shaqeeyo sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xuduudda ciidanka badda ee wadankiisa. Wakaalada wararka ee Vana oo ku hadasha afka dowladda Itoobiya ayaa soo xigatay Master Abiy oo sheegaya in dib u habeynta militariga ay tahay in lala jaanqaadsiiyo dunida isbedelka degdega ah ee sameynaysa, sidoo kalena ku tallaabsanaysa horumarka dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda. Sida ay xukuumadda Abiy dib ugu yagleesho ciidankeeda badda, waxay u baahan tahay dalalka caawiya dhinaca helitaanka badda oo ku yaala gobolka Geeska Afrika, sida uu qoray bogga online-ka ee Naval Post oo ka faallooda arrimaha militariga iyo awoodda ciidamada badda. Wararka ku saabsan in Addis Ababa ay dib u dhisayso awoodda ciidamada badda ayaa soo shaacbacday kadib markii Abiy Ahmed uu kuna la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo u ballan qaaday in uu dowlad ahaan Itoobiya ka caawin doono dib u dhiska ciidanka badda. 2019 ayay Itoobiya iyo Faransiiska kala saxiixdeen heshiiskii ugu horeeyay ee ku saabsanaa wada shaqeynta dhismaha ciidamada. Waxay u muuqataa in Faransiisku uu yahay dalka wadankan ku yaala bariga Afrika ka garab siinaya tababarka iyo qalabeynta ciidamada badda. Ujeedada ciidamada badda Itoobiyana markaanu eegno, Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inay isku dayayso sidii ay saameyn dhanka awoodda ugu yeelan lahayd gobolka dhinaca bari ee badda cas ee la wareegto ilaalinta amniga marinada badda ee isticmaalaan maraakiibta ganacsiga ee Itoobiya. Inta badan maraakiibta badeecooyinka wada Itoobiya ayaa adeegsada badda cas iyo gacanka cadan. Arrintan waxa ay ku soo aaday xilli gobolka ee ka jirto dhaqdhaqaaqyo kooxaha burcadbadeeda walow ay howlgalkooda hoos u dhaceen wixii ka dambeeyay markii ciidamo caalami ah la soo dhoobay biyaha badweynta Hindiya. Haddaba xagee saldhig badeed looga helayaa ciidamada badda Itoobiya? Wixii ka horeeyay sanadkii 1990 Itoobiya ma ahayn wadan bad la'aan ah, ciidamadeeda badduna si buuxda ayay u shaqeynayeen. Wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Itoobiya sanadkii 1991 Itoobiya waxa ay weysay xeebteeda oo ay ku jirtay dekada muhiimka u ahayd ee Casab, taasoo wadanka ka dhigtay mid aan bad lahayn kadib markii Eritrea ku dhawaaqday madax banaanideeda. Arrintaasi ayaa Itoobiya ku qasabtay inay howlgallada ciidamadeeda badda u wareejiso saldhigga ku yaala wadanka Yemen, balse dhowr sano kadib 1993 dowladda Yemen waxa ay dalkeeda ka soo ceerisay maraakiibta ciidamada badda ee Itoobiya. Sidaas awgeed Addis Ababa waxa ay go'aansatay inay u wareejiso dhinaca dalka Djibouti oo ay la gashay heshiis ay kira ku bixinayso. Hase yeeshee sanadkii 1996 Itoobiya waxa ay ku guuldareysatay bixinta lacagii kirada ahaa. Taasi waxa ay keentay in Djibouti ay la wareegto maraakiibta ciidamada badda Itoobiya ee harsanaa, sida uu qoray Naval Post. Hadda kadib soo nooleynta ciidanka badda Itoobiya waxa ay saldhig heli kartaa 4 wadan midkood, Eritrea iyo Djibouti oo ah kuwa ugu waaweyn ee la filan karo. Kenya oo u muuqato inay xoogaha ka fog tahay, Soomaaliya oo daris kala ah dhanka kale. Warar la iskula dhaxmaray baraha bulshada waxa ay sheegayeen in Itoobiya ay daneynayso dekada Selac ee Jamhuuriyadda iskeeda madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Keed Maxamuud oo la hadla warbaahinta ayaa beeniyay warkaasi, waxaana ku tilmaamay kuwa been abuura. Waa arrin aanan sal iyo raad lahayn, nin wariye ayayna ka timid markii hore ayuuna yiri wasiirka xilli uu beeninayo warkaasi. Dr. Abiy Ahmed markii uu xukunka qabsaday ku dadaalay inuu xulafo la sameeyo dhammaan dalalka ku aareysan, inkastoo uu fiican yahay
xiriirka xilligan kala dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo Asmara waxaa la aaminsan yahay inuusan gaari karin ilaa heer Ethiopia mar kale ku talaabsato inay ku tiirsanaato dekedda Azab iyo Mazawa ee dalka Eritrea. waxaa kale oo laga cabsi qabaa in dhismaha ciidamada badda ee Ethiopia uu khatar ku noqon karo Eritrea ama ay halis u arki karto. Diblomaasi hore oo u dhashay Ethiopia ayaana sheegay in istiraatiijiyadan iyo walaaca siyaasadda dhinaca amniga dhul ahaaneed ay sabab u noqon karto dhismaha ciidanka badda. xuquuqda Ethiopia u leedahay inay isticmaasho biyaha caalamiga waxay u baahan tahay inay yeeshaan saldhig badeed ayuu ku yiri wareysi uu bixiyay. waxa uu hoosta ka xariiqay in Somaliland iyo Djibouti oo kaliya ay yihiin meelaha ugu habboon oo ay Ethiopia ku yeelan karto saldhig ay isticmaalaan ciidamada badda. waxaase xusud mudan in Djibouti ay saldhigyo noocaas ku leeyihiin dalal kale. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan nagu cusubteen nagu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 saacadka ku baayino aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin oo inuu muhiim daawadayaal waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.